madashan oo si heer sare loo soo agaasimay laguna daahfuray buugga cusub ee mahadhooyinka ee sanam iyo waayihii mujaahid maxamed cilmi galaan waxa munaasabadaas oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada siyaasiyiin mujaahidiin aqoon-yahan suugaanyahano haween iyo marti sharaf kale ugu horeyn munaasabadaas waxa ka hadlay Cali Cabdi Cuumay oo ahaa qoraaga buugga soo ururiyay waxaana ka warramay maraaxilkii kala duwanaa oo soo maray buuggani muddadii uu gacanta ku hayay iyo qaybaha uu buuggani ka kooban yahay أنا وكالنتي waxay ahayd ururin bay ahayd buug wuxuu ka kooban yahay 108 iyo 7 cutub maxamed cilmi haday noqoto TC halkaas uu dhaxalkii loogu soo reebay maxamed cilmi galaan oo ah mujaahidka uu buuggani ka warramay waayihii dheeraa uu ku lahaa halgankii dib u xoreynta dalka ayaa yiri ودقالك إلهي دبياغيس كجوجين إنه قرآن ويدرس التاريخ وقتكان أيام شعر هاي أنت اسمه قوات كينيا xubno ka tirsan mujaahidiintii iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa iyaguna ka warramay taariikhdii dheereed ee halgankii dib u xoreynta dalka SNM daahirkan aynu arkayno waa Somali National Movement laakiin tisirta iyo khawaasta waxay tahay sayyiduna wa nabiyuna Muhammad marka waxaan dadka aad ugu go'aabinayaa buugga akhriya taariikhdiina barta wajaayirkaana waxaan iskugu nimi xarshin bali gubadlaya balacbaniya waqtigii la galay maxamed cilmi galaan oo jooga xarshin ugu tagna cabasho gaari jiibo lagu soo daray markaasaan ku soo noqonay caraacari dadaal kasta oo la sameeyo hadii qof walba inta in leeg uu keeno marka la isu geeyo wuxuu noqonayaa wax weyn oo kii ceerigaabo joogay ka ceerigaabo ka soo warramo oo kii burca ka soo warramo oo mid waliba halkuu joogay ka soo warramo marka la isku daro markaasuu taariikh noqonaya wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore wasiir ku-xigeenada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye waxbarashada iyo sayniska Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud Dhagaweyne xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Yurub Abibi Cabdi oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa ka warramay qiimaha uu buuggani xambaarsan yahay waxayna sheegeen in si weyn loogu baahan yahay in la qoro lana soo bandhigo taariikhda halgankii dheeraa ee dib u xoreynta dalka SNM Somaliland bay dhashay qarankanna waxaynu u baahanahay in la wada dhiso ummad wax wada leh dal wada leh diin wada leh xuduud wada leh wax wada leh in hore loo socdo oo wax la wada yeesho waxa weeye maamulintii maxamed cilmi oo aan aqoonsanahay halkaa waxa uu ku qoran inay rasmi yihiin ama xaqiiqo yihiin waayo wuxuu ahaa iyadoo arrintu adag tahay oo 26 iskugu geysay quwadeedii magaalada korkeeda ama hareeraheegaba ninkii soo jiiray ee ka soo gudbay buurtaa ka soo dhacay isagoo guutadiisii wata dadkii dalkan xoreeyay ee xabadda u qaatay nin walba isagoo gurigiisii iyo hantidiisii iyo reerkiisii la joogay dibadda u baxay haddaynu wax kale u weynaynaynu iskuullada ku xusno waa muhiim in aynu taariikhda ubadkeena barno dalkan iyo dadkan wixii loo soo maray waxaan u mahadnaqayaa korneelka ka xukuumad ahaan waan soo dhaweynaynaa buugga ka mujaahid ahaan waa magacayagu waan xusaynaa halganku maaha marka halgan la soo hadal qaado cidna kuma xumaynayno laakiin waa taariikh la soo maray oo ay Soomaaliland leedahay mana aha qofkii lahaa inuu ka boqdo dee Soomaaliland waa Soomaaliland inay asana dhashayna ma diidanin